haddaba umuurtaasi waxaa inooga warramay isla gudoomiyaha Puntland Cabdixakiim Maxamed Axmed dhoobo daareed oo u warramay waryahayaga Garowe Axmed Cawli. sideedaba wararka suuqa yaala oo lala wareegaya iyo wararka yaala golaha way kala duwan yihiin annaguna waxaan ku shaqeynaa waa wararka golaha yaala mas'uuliyiin baan nahay dalka waan u dhaaranay hadday jirtay arrintaasi waa saakaad arki lahayd kaagana muuqan kumana ay jirinin mid daymo way leedahay 3 kursi baa ugu sarreeya wadanka waxa weeye waa gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka inay isku mid yihiin wax sax weey waana arrin iyada laftigeedu dib u eegis u baahan xataa u baahan dhisidii Puntland wax ku salaysan taaman doonta waxani waa awood qaybsi awooduna ma kala hooseyso haddii kuraasta qaybi hooseyso qaybina koreyso waa oran karaa dee codadkooduna waa kala koreyn karaa laakiin dastuurkana cid baa qortay waxii min allaahiyana ma ahayn waa arrin taaban doonta wax qaybsigii iyo baawar qaybsigii Puntland dadkii dhistay baana ka wada hadli doona laakiin ma aha arrin aniguna aan wax ku xasaradaynayo goluhuna wax ku xasaradaynayo waa xaq kuraastu inay ama isku mid noqoto oo hoos la isugu keeno ama kor la isugu geeyo ma jiro kursi wax kaga duwani laakiin waana awood qaybsi waxaan power sharing bahay taasi eegis bay leedahay waxa jirtay inaad baarlamaanka xilligaas oo kale dastuurka ansixinaya aad ka mid ahayd markaas kuma muuqan miya maanta aad gudoomiye tahay ku muuqataa anigu maalinka gudoomiyana ma ahayn xilliga horeeya baarlamaanka soo galay bay ahayd baarlamaan wuxuu yahay iyo wax kuraastu kala tahay midna ma fahamsaneen aadna taa kuma yeelan karo laakiin maanta qof kasta oo Puntland jooga way u muuqataa ama waxa soo bixi doonta in kuraastu kala hooseyso iyo dadka powerka qaybsaday inay kala hooseeyaan ama waxa soo bixi doonta in powerka loo sameeyahay isku mid ay noqdaan dhanka kale waxa jira in la leeyahay madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka waa saayaan arrintaas oo kale gudoomiye ma jirta maya ma jirto waxay saayeen moogi wax ceeba oo aniga madaxweynaha dhex yaalana moogi meel aanu isku qabanayna ma jirto way dhacdaa marmar dadku inay wax kala fahmaan way dhacdaa afkaaraha in lagu kala duwanaado laakiin anigu ma ogi wax sayna oo aniga madaxweynaha naga dhaxaya wax dhibaato oo dhex taalana ma ogi isna inuu og yahay u malaynayo waxay leeyihiin gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu farta wadnaha u kaga hayaa in uu xilkiisa uu waayo mooshin laga keeno sidaas la sheegaya wadnaha farta kuma hayo kursigani wuxuu ahaa hadaf aan lahaa oo aan xaqiijiyay laba jeer hore aan tartamay dadka waxaan baray siyaasadda in loo sabro mar saddexaadkiina waan ku guuleystay marna ma caajisineed xumana iguma iman waan jeclaa hadafkaygana xaqiijiyo waana xaqiijiyay laakiin aad uma caashiqsanay inaan kursiga aan ku adaygo oo iraado kursigaan fadhiyaya laakiin waxaan aaminsanahay ummadda mas'uuliyadda u qaaday inaan ugu shaqeeyo kuna matalo kursigaa soo haray kursigu maktuub cinda Ilaahi weeye intaan fadhiyo nin ila jecel iyo nin la necab waxa weeye haddii golahaygu ay u arkaan inaanan hogaamin karin ama shaqada ay madeen aanan ku filayn iyaga ii sheegi karayo aan cod bay qaad baan ka soo degaya xagga dambaana fadhiisanaya wali waa ku sheegaya laakiin iyada mid ma yeeri doono goluhuna ma yeeri doono aniguna ma yeeri doono in golaha cid ka baxsani oo ama suuqyada joogta ama maslaxado kale iyo dara kale Puntland inay iyadu golaha iyaga ay khalkhal soo gariso oo faraha la soo gasho kama yeeri doono لكن قدومي dadka ku noqday waxay leeyihiin gudoomiyuhu madaxweynaha oo kale oo barbar yaacaya oo madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya team kale isku dhahoonadeen buu ku xiran yahay marka arintaas ka war aniga iyo madaxweynaha isma dhinac karo madaxweynaha madaxweynihii dalka qof ahaan isaga ugu sarreeya dalka hay'adahaana hay'adan odayga waxa ay u sarreeyso baarlamaanka hay'adaha dawladda shaqooyinkeeguna dastuurka kale calaamadiyay iyo xeeroosaadka golaha iyaga mana jirto shaqo madaxweynuhu leeyahay anu waan hayaa heshiisaan soo galay ma jirto kuwa soo saxay ma jirto arrimo fulintu ay leedahay ma jirto waxa soo hadhay Soomaaliya qarannimada Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliyeed waa wixii Puntland loo dhisay mana aaminsan madaxweynuhu diiday aniguna ma diidanay haddii ku sheegaya waan ogolahay midnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed wax gaar annaga cid nooga dhaxayaana ma jirto Puntland waa hooyadii dawladda federaalka ah wax kale oo hadda jiraan ogahayna ma jirto xukuumadda kale xiriirka u jira qodobo kamid ah waxay dhaheen kala shaqeeymaan sida doorashooyinka arrimaha dastuurka waxa soo dhan ayay sheegtay marka adiga kuma muuqato miyaa waxa ku sheegaya xiriir hotel iskama goyn karo dalku waa tashi waana talada waa la wadaagaa dawladdu xiriir ma goyn laakiin waxyaabo ay ku kala duwan yihiin ama aan ku kala duwanahay afkaarahan way jiraan marka waxa weeye wixii afkaaraha ay ku kala duwanaadaan waa caadi maamulada kale ku kala duwan yihiin dawladda weyn laakiin dalkani nidaam buu leeyahay qarannimada Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliyeed waa muqaddas tan Puntland waa taan u dhaartay waa muqaddas marka wax way xiriir la gooyay oo ay Soomaaliya iyo Puntland ku kala go'an yihiin ma jiro wax
وتركاس وحوها قدوميها برلمان كبنتلان عبد الحكيم محمد أحمد روبداريد